haddaba marka nolosha qorshe loo samaynayo noloshu keliyaata hal meel maaha iminka intiina halkaa fadhida mid baad ka simantihiin inaad wada arday aad tihiin laakiin noloshu maaha keliyaata ardaynimo uun mararka qaarkood waxa aad tahay addoon ama mar walba waxa aad tahay addoon uu ilaahay abuuray markaa waxaa lagaaga baahan yahay inaad qorshe u dejisato cibaadadaadii iyo aakhiradaadii mar kale waxa aad tahay waalid baa lagu yahay waxa u baahan qorshe inaad aad u dejiso waalidkaagii iyo qaraabadaadii iyo faamiligaagii sidii aad ula tacaamuli lahayd mar kale oo saddexaad arday baa tahay ardaynimadii maxay u baahan tahay iyada lafteeda iyo cilmigii iyo barashadii isagna qorshe u baahan yahay aan soo onde saasa loo wadaya marka nolosha oo dhan marka qorshe loo samaynayo waxyaabaha ugu badan dadka khaladaadka ay galaan waxa kamid ah markuu qofku qorshe dejisanayo wax laga yaabaa meel yar oo soo inuu ka fikirayo kaliya ardaynimadan iyo meelahan iyo maxaad barataa wixii kale oo dhan uu iloobayo marka si aad u noqoto qof dhammaystiran qorshahaagu waa inuu u qaybsan yahay 6 qaybood 6 meelood oo nolosha kamid ah waa inaad qorshe aad ka dejisato marka meel baan u soo qaadanaynaa meel walba oo idin sheego waxa idin ka baahanahay 2 arrimood marka koobaad waxaan leeyahay mesela halka qaybta marka la joogo waxaasa lagaaga baahan yahay waxaan kuu sheegayaa inta ugu yar adiga lagaaga baahan yahay macnaha mesela cilmiga oo kale markaan soo gaadhno waxaan kuu sheegi doonaa inta ugu yar ee loo baahan yahay si aad qof aqoon-yahan u noqoto maxaan u baahanahay marka arrinka idinkeedii ka rabaa waxa weeyaan inaad isku daydo halka horta inaad soo gaadho marka koobaad qodobka labaadna waxa weeyaan inaad isku daydo inaad kor u socoto marka mid walba waxaan ka soo qaadanayaa halka ugu hooseysa number 1 waxa aan ka bilaabayaa waa qaybta ugu horeysa ahna qaybta aan oran karo waa qaybta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa the role of faith and worship waxa weeyaan waa qorshaha aad u dejisanayso cibaadadaada iyo aakhiradaada waayo adduunkan waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay inuu inoo keenay in aynu cibaadaysano marka cibaadada iyo aakhira u shaqaysigu waxay inooga baahan tahay in aynu la nimaadno qorshe cadaana oo aan laga boodi karin marnaba marka cibaadada waxaan ka soo qaadanayaa halka inta ugu yar ee lagu oran karo inuu qofkaasi uu cibaadaystaa waayahay waxaan markastana niyada ku haysaa sidoo ilaahay inoo sheegay walal aakhiratu khayrun laka min al-ula adduunyada iyo waxa la qorsheynaya iyo waxa la dhiganayo waxa soo dhan isku wadagee aakhiro ayaa kaaga khayr badan buu ilaahay yiri al-ula adduunyada waayahay marka waxaan bilaabayaa aakhirada iyo cibaadada qorshihii loo dejin lahaa number 1 waxa la guuri waa inaad perform the obligatory prayer waa in aad gudato salaada waajibka ah taasi waa qodobka koowaad ee ugu horeysa waana dardaarankii ugu dambeeyay nabigu ka tagay kaleey salaatu wasalaam as-salaat buu nabigu yiri wama malakat aymanukum salaada marka waxaad ku dadaalaysaa laga bilaabo maanta waajibka ah ee salaadihii waa labo midna waa waajib midna waxa weeyaan waa sunni salaada waajibka waxaad ku dadaalaysaa in aad waqtigeeda tukato inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta bi ilaahi time-keega inaad tukato waa salaad waliba waqti bay leedahay numberka labaad waxaad ku dadaalaysaa nin haddii aad tahay kaasi rag u gaar u yahay in aad jamaca ku soo tukato marka salaadu waa qodobka koobaad ee aad ilaahay ugu dhawaanayso subxaanahu wa ta'ala bacda shahaadati marka diinta soo gasho waa qiimo salaatu ma ku xigta salaada ooga marka imika inteena halka fadhida iyo inta walaalaha ina daawanaysaba hadii uu khalkhal uu ku jira salaadaada ama waxoogaa ay daciifnimo ay salaada ku jirto de maxaabad guul gaari maxaad noloshaadii aad wax qabsani maxaad wax qorsheysani marka number 1 waa salaada gaar ahaan salaada waajibka ah halka markay socoto waxa idin kula talinayaa dhamaantiin inaad soo dejisataan application aad u faa'iido badan kaasoo ka caawin doona inaad salaadaada aad xafidato kaliya waxaad ku buuxsanaysaa un kolba magaalada aad joogto marka inagu imka Boorama joognaa Boorama aad ku buuxsanaysaa kadib uu ku soo qabanaya wuxuu ku sheegay 5 salaadood magaalada Boorama iyo waqtiga la tukanayo markasta oo salaadu soo dhawaato ama ay gaadhana uu ku eedaamaya uu ku xasuusinaya application-ka iPhone iyo Android labadaba uu leeyahay waxa la yiraahdaa magaciisa al-musalli baa la yiraahdaa waa laga maarmaan qof waliba inuu soo dejisto qof waliba inuu haysto waayahay application-kaas markaa wuxuu ka caawinayaa in waqtiyadii dhammaan salaadu dhan wada xafido waxyaabo badan oo dheeraad ah ayaa ku jira imika inagu waxaynu soo download gareysanaa oo nagu tala galay waa salaada laakiin waxyaabo badan oo muhiim oo kale ku jira waxa kamid ah quraankii baa kugu jira
adkaartii baa kuugu jirta waxyaabo fara badan oo ku xasuusinayo ayaa kuugu jirta marka number 1 talada ugu horeysa ee siinaya maanta intayna wax kala bilaabin waxa weeyaan salaada inaad waqtigeega aad ilaaliso go'aanka ugu horeed maanta qaadata ka noqdo cibaadadii baan ku jirnaa marka qaybtii cibaadada iyo qorshihii loo dejinayay number 2 cibaadada labaad waxa weeyaan akhriska quraanka marka ay u timaado waa in aad leedahay wardi quraanka kariimka ah wardi macnaha waxa laga wadaa waa in aad leedahay qayb maalin walba aad akhrisato taasina waa laga maarmaan imika maalin dhaweyd waxaan aad ula yaabay fiidiyoo yaro muuqaal yaro baraha bulshada la soo geliyo magaaladii ahayd ma si xasuustay laakiin waxa dadka la weydiinayay goor maarta kugu dambeysay kitaabaad kala furto waxa aad u yaab badnaatay dadka qaarkood 5 sano ka hor bay ugu dambeysay kitaab aan akhriyo mid baa iska lahaa wallahi ramadaantii bay ugu dambeysay midba wax buu sheegay quraanka markay noqoto waxa loo baahan yahay inaad qorshahaad ku darsato wardi inaad samaysato macnaha maalin walba yaanay badnaaninba cidiba kuma la maalintii intaasoo jis akhriso laakiin waxa lagaaga baahan yahay in yaroo kooban ama kolba adigu intaad gaarsiisan karayso laakiin meesha muhiimka waa maxay inaad joogtayso weeyaan marka maalintii 10 daqiiqo 15 daqiiqo midkeen muu waayaa inuu quraan akhristo waa maya marka qorshahaaga waxaad number 2 ka dhiganaysaa wardi quraana waa inaad samaysato weeyaan waayahay su'aal baad meesha imanaysa ka waran quraanka oo dhan hadaan wada garanayn ama aan wada xafidsanayn horta intiina imika halka fadhida sanadka cusub ee bilowga imika aynu ku jirno haddii uu jiro qof aan quraanka xafidsanayn qorshahaaga number 1 waa inaad ka dhigato sanadka inaad quraanka xafido macallin tag u sheeg kadibna halkii aad socotay baa la eegi doonaa waxaad ku tiraahdaa sanadkaas aan rabaa inaan quraanka ku dhameeyo kitaabka qaado adii kadib kitaabka saaxiib la noqo marka wardi quraana waa inaad leedahay waa cibaadada qaybta labaad cibaadada saddexaad waa dhikriga weeyaan waa xuska ilaahay qof doonaya inuu noloshiisa ku guuleysto inuu heer gaaro laakiin at the same time dhinaca kale bal waxaad ka warantaan aanan ilaahi abuurtayba aanan xusayn ilaahay baa yidhi wadkurullaha dhikran kathiira wasabixuuhu bukratan wa asiila ilaahay waxaa la yidhi waxaad xustaan dhikri aad u fara badan waxaanad u tasbiixsataan ilaahay aroor gelin hore iyo gelin dambaba waa inaad ilaahay u tasbiixsataan xaggaa markaa dhikriga markaan soo gaarhno waxyaabaad ilaalinaysa halka ugu hooseysa dhikriga waxaa ka mid ah adkaaru sabax wal masaa adkaarta subaxii iyo gelinka dambe waa laasim waa inaad akhrisato waxaa kaloo muhiim ah inaad akhrisato ducada seexadka markaad habeenkii sii seexanayso ducaa u noom baa la dhadaa ducada markaad xamaamka oo kale aad tegayso marka aad soo kacdo ducooyinka muhiimka ah ee maalinkii loo baahan yahay waa inaad la timaado weeyaan marka adduunyadu way iska hawlo badan tahay way isbedbedel badan tahay waxa la yidhi farxad joogta ana maaha murugo joogta ana maaha waxa lagaga baxayaa inaad dhikriga ilaahay iyo xuskiisa in aad badiso weeyaan imika fududahay saa dhikriga ilaahay lagu xusaayay application badan oo waxa jira aynu isticmaalno ama mobilkeenaasaan markasta aynu xasuusin karaa imika applicationka hore ee salaada aynu ugu talagalay qayb dhikrigaana uu leeyahay marka af English iyo af Carabi af English dad geesitaan wad fahmi karaysaan waxa kaloo imika jira tusbixi awal la qaadan jiray ee kaalumi jiray ama wixii ma jiraan electronic baa laga dhigay tusbixi marka wad aragteen isagoo fargala hadalkan soo iibsanaysaa wad soo gashanaysaa meel walba oo aad tagto ama meel kasto aad ku sugan tahay xuskii ilaahay halkaas ayaad ka xusaysaa marka dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inta ugu hooseysa aan idin ka soo qaadanayo adkaaru sabax wal masaa iyo adkaaru noom waa laga maarmaan maalin walba qorshahaaga inay kugu jirto waayahay qorshaha xagga cibaadada waxaad ku darsanaysaa oo kale nawaafil khayris waa salaadaha sunnaha salaadaha sunnahaana inta ugu yar waxa weeyaan in aad tukato kuwa loo yaqaano rawaatibta waxa nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam adoonkii muslim ah ee ilaahay maalin walba u tukada 12 rak'ah 12 rak'adood bana Allahu bihinna baytan fil janna ilaahay sababtooda ayuu guri jannada uga dhisaa marka 12 rak'adood waxay kala yihiin labada rak'adood ee ka horeeya salaada subax oo nabigu yiri khayrun min ad-dunya wama fiha ad-dunyada iyo waxa adduunka yaalo oo dhan way ka khayr badan yihiin waa laga maarmaan inaad tukatid afar ka horeeya duhurka iyo laba ka dambeeya waa imsaalkaasi waa 6 Soomaa iyo labadii salaad subax markii la isku geeyo waa 8 waxaad u geysataa laba ka dambeeya bacda maghribka waa 10 laba ka dambeeya cishaa'iga waa 12 waa halka ugu hooseysa ee aad ka gudan karayso salaadaha sunnaha
marka qof walba waxaad ku tala gashaa maalinka cadceedu ku barideed soo kacdaba inaad ilaan eeg waxa loo baahan yahay eeg waxa nabigu sallallahu alayhi wasallam guri baa looga dhisayaa jannada imika wada aragsan guri marka adduunyada laga dhisanayo sida lacagta loogu urursado iyo sidoo kale meel sayfin loo sameeystay wax loo dhigto aakhirana dib u sugaysa saasoo kale ay u baahan tahay adduunyada inta joogaysa waad garanaysaa waa maalimeero kooban laakiin inta xataa qabriga aad ku jiraysaa waa malaayiin sana oo imika maanta dadkii nabi aadan waagiisii noolaa ee qabriga la geliyay ilaa maanta waa ku jiraan inaguna saasoo kale nahay maalinka aad dhimato intaasoo sanaad sii moodsanaanaysaa ilaa haddana qiyaamaha laga gaadhayo marka waqtigan yare kooban adduunyada aad joogto dee waa inaad ka shaqaysato guri aad jannada ku leedahay aad ka dhisato waxa kuu suuro gelinaya 12 ragcadood inaad tukato salaadaha sunnaha kale waxa muhiima salaatu duha ina salaada duhada aad tukato waa laga maarmaan weeyaan salaatu duhada waa salaada la tukado weeyaan barqadii wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xubin kasta oo jirka bini'aadanka ka mid ah ilaahay wuxuu maalinka ku waajibiyay sadaqad in laga bixiyo adoo runtii caafimaad qabaad soo kacda sadaqad baa laga sugan xubin kasta aad bixiso oo jirkaaga ka mid ah deemso xubnood weeyaan jirkeen marka waxa soo dhan haddana leeynama kalifin waxa leeyahay waxa inaga gudaya 2 ragcadood oo aad u tukato duhada marka salaatu duha aad ku darsataan salaada ugu dambeysay sunnaha ee aan doonayo waliba marka aad dhalinyar tahay awood haysa inaad isku waajibiso waa salaada loo yaqaano salaatu leyl waa salaada habeenkii la tukado salaatu leylka waxa laga yaabaa inagu inaynan kuba salaaxinba waligeedba salaatu leylku faan khaldan bay dadku ka haystaan waxa ka bilaabantaa marka salaada cishaa laga baxo ilaa ma laga gaarayo salaada subax waa tan taraawixda kale la tukado ramadaanada marka waxa dejisanaysaa qorshe ah salaatu leylka habeen walba inaad tukato salaada cishaa marka aad tukato ka baxdo 2 ragcadood baa ugu yar oo salaatu leylka ilaa inta doonto waad ka gaarsiin karaysaa marka ama salaada cishaa kadib tuko ama 10 marka xaafada ku noqoto tuko ama sida ugu fadliga badan ثلث الليل الأخير كصلاة الصبح وحي الكهر وصوك عصاصة وقفي عن ولبنا وقت جاتكو المهم وح لقاربة صلاة الليل كهبين والبا سيتشوكتا إن دقدتو واجبنا أتسكردكتو شن صلاة بلاي واجبنا كردجة تانا أتكون درسته شيء يوم القيامة يكون شفيع عقاته إن العبادة وحكي حكتا حج كي عمر ذا قف كي أنا سوى حجني قرشها إنه كون درسته إنه حج كتيجو ونص عمر رستو marka waliga qorshahaaga qorshayaal wada adduununa ka wada dhigin markasta inaad ku fikirto inaad xajka aad tagto ilaahay kugu sakhiro oo aad soo cumreysato cibaadada waxaan ugu dambaysiinayaa in aad la timaado soonka sunnaha ah marka inuu qofku yeesho soom tadawuca sidoo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka wuxuu ilaahay uu nabigu yiri hal maalin ilaahay dartii u sooma hal maalin ilaahay waxa uu ka fogeynayaa naarta 70 khariifan 7 sano in loo jiro marka soonka sunnayaasha halka ugu hooseysa signeeyay sheegaya waxa ugu hooseysa bishii inaad ka soonto 3 maalmood walibana waa ayaamaha loo yaqaan ayaamul beedka waxa ku xasuusin doona application kiimika soo dejisanayeen salaadana ka hadlay kaasa markasta ku soo diri doona ku oran doona berito waa ayaamul beed waa 3 maalmood isku xiga bil walbana soo laabanaya marka ayaamul beedka inaad soonto haddaad ku darsan karayso isniinaha iyo khamiisaha sidii sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad soonto laga maarmaan haddii aad awoodi karayso weeyaan way waa 2 maalmood ilaahay acmaasha loo rafciyo weeyaan inta waxa dheer soonka ramadaanka isagu waa waajib weeyaan waxa kale oo dheer 6 maalmood ee shuwaalka ee ka dambeeya markay muxuu ahaayay bisha ramadaan ay dhamaato markaad soonto ka cishana aad soontay ramadaanta 6 cishana aad soonto ayaamul beedkan iyo kuwana waxa ay ku noqonayaan waa sunnayaashii marka waliga waxaad ku dadaashaa inaad yeelato ramadaanta kugu waajib kulli waan soomayna haddana caafimaad qabno laakiin inaad yeelato waxaad ku dadaashaa soon sunna ah qorshahaaga inaad ku darsatid qaybta cibaadada waan sii dhamaynayaa waxa ugu dambaysa cure of sin inaad iska daweyso macaasida haddii aad leedahay kulli horta inagu bini aadan baynu nahay malaa'ig manihin oo malaa'igtu ilaahay la yacsuun allah ilaahay macaasiyaan wixii la farun bay sameeyaan laakiin inagu bil aadan baynu nahay kulli dambi way naga dhacaya waxaynu u baahanahay marka dambigiina sidiisii lagu deeynin in la iska daweeyo marka haddii aad leedahay gaar ahaan haddaad leedahay dambi soo laabta oo aad mar walba samayso waa inaad iska daweyso weeyaan dambigaas waayo waa dhisiis wad xanuunsanaysaa xanuunka waa inaad iska daweyso
si dhabana waa inaad ilaahay aad uga toobad keento marka qof walba iminka halkaas waxaan idin sheegay cibaadadii waa halkii ugu hooseysay halkaa ku joojiya maaha horta intii waxaa horta ka hooseysa dee cibaado lama idhaahdaba qofka aanan salaadiiba googoynayaba muxuu ahaye faralkii ama aanan ilaahay xuseyn ama kitaab quraan aynay aqoonin dee kaasi horta dee muslimnimadiisa shaki ku jiraaba waxay culimada qaarkood gaadhsiiyeen inay idhaahdaan qofku hadduu ka tago hal salaad welibana isagoo ugu talagalay mutacamid bay dhahay ugu talagalay hadduu hal salaad ay dhaafto culimada qaarkood waxay idhahdeen waa u gaaloobay horta faqad kafara waxa intaas sii dheer hadduu xaas laa xaaskiisiiba ka furantay hadduu neef gowraco cidi cuni mayso hadduu sidaa ku dhintana qabriga muslimiinta laguma darayo waa hadda hal salaadoo keliya waa hal salaadoo kugu dhaaftay kubad adoo maqlaya kubaddii aad ciyaaraysay ama adoo maqlaya aad ka seexatay oo muxuu ahaye aad iska seexatay salaadii subax hal xabo keliya weeyaan marka horta ilaahay noo dembi dhaafo wixii waxaa loo baahan yahay macaasiyo dunuub aynu leenahay in aad si dhaba aad uga toobad keento halkaas iminka waxaanu yidhi 6 qaybood baan u kala saarnay qorshaha nolosha qaybtaasaa ugu horreysay qaybtaasi hadday kuu hagaagto waxaad ku bishaaraysataa in qaybaha kale oo dhanna inuu ilaahay subxaana wa tacaala iskugu kaa toosinayo oo waxa kaloo dhan ay ku hagaagayaan qaybtaa hadduu madmadow ku jiro ama gaabis uu ku jiro ama leexleexashi ay ku jirtana waxaad ku tala gashaa in weligaa muxuu ahaye nolosha aanad ka bixi doonin oo aad sidaa ahaanayso waayahay taasi markaa waxayd qaybtii koobaad qaybta labaad